gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Lughaya Cabdillaahi Cali Aw Nuur oo ay wehelinayeen salaadiin aqoonyahan iyo howlwadeeno kamid ah hay'adda IFAD ayaa u sheegay warbaahinta in la dhameystiray dhismihii cusbitaalka magaalada Lughaya oo ay dhismihiisa bixiyeen qurbajoogta ka soo jeeda degmada Lughaya ee ku sugan wadanka boqortooyada Ingiriiska. gudoomiyaha degmada Lughaya wuxuu u mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha cusbitaalkan wuxuuna ka codsaday wasaaradda caafimaadka qalabeyntiisa iyo sidii loo keeni lahaa dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad oo ka howlgala cusbitaalkan. gudoomiyaha Cabdillaahi Cali oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi waxaan u mahadnaqayaa marka koowaad maxaadanay dadkii soo dhisay dhakhtarkani ee reer UK iyo intii kale gacan ka geysatay gudaha hay'adda marka labaad waxaan beeninayaa arrin bariyaanba meelaha aan ka maqmaqlaynay oo ahayd in la sheegay in dhakhtarkan uu yahay mid bareefado oo shakhsi leeyahay taasina mid jirta maaha ama maayarka degmada waxaan cadeynayaa inuu dhakhtarkani una ahayn mid uu qof leeyahay dadkii degmada ahaa ee dibadaha joogay dadka ugu danqado soo dhisay laakiin maamulkiisa iyo gacan ku hayntiisa iyo wax ku taristiisa waxa looga fadhiyaa wasaaradda caafimaadka Soomaaliland marka arrintaasi la sheegayna saasayna u jirin dhakhtarkaasna waxa ka dhiman deyrkii iyo kulli xafiisadii lagu shaqeynayay oo iyaguna halkan jagooyinka ugu dunsanay yihiin marka in intaana lagu soo daro waan rajaynaynaa gacan laga geysto aad iyo aad baan u mahadsantihiin miisaanka aakhirana Allah inagu daran leeyahay. sidoo kale waxaa iyaguna hadal ka jeediyay cusbitaalka Lughaya ee la dhameystiray Suldaan Abshir Maxamed Ducaali oo ka mid ah duqeyda degmada injineer Bilaal oo isaguna ka mid ah aqoonyahanka degmada Lughaya kuwaas oo dhamaantoodba soo dhaweeyay dhismaha cusbitaalkan. waxa weeyaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa ugu ducaynanaa waxa weeyaan dhakhtarkii aad u hawl gasheen uu dhamaaday waa ka deyrkii baa u dhiman iyo wax yar oo xaal oo deyrkii baa adigu muhiimadda xagga dibadda ka dhiman waxa kale oo ka dhiman qalabeyntiisii gudaha ayaa ka dhiman marka waxa weeyaan aad iyo aad baan idinku mahadnaqanaa wixii kale ka soo qaban karaan oo deyrkii ka mid yahay waad ka soo qabanasaan iyo cidii kale arkasaba waxa weeyaan nasiib wanaag saaka IFAD baa nala joogta inay maaragtaa horaba waan maaragtaa u codsanay inay noo qalabeeyaan waxa weeyaan IFAD iyo dawladda iyo hay'adaha kalaba dhammaanba dhakhtarkii waa ka ugu dhamaaday qalabeyntiisii baan u baahanahay cid kastoo wax ka tari karta oo IFAD saaka nala joogta ay ugu horeyso ayaan codsi u sameynanaa. isbitaalkan isagoo dudsan bay gabdhahaasi arkeen way bilaabeen way dhiseen ilaa khayr ka siiyo waa dadka iyaga dibadda jooga wanaan u ducaynayna wax kale oo male waxa weeyaan ilaahay khayrkiina aad ku daro deerkaas haray insha Allah isna wada dhismi waxyaabo badan oo damba u hari doona dadka guduhuna diyaar bay u yihiin walaalihii soo caawiyeen wax leenahay soo muxuu ahaay dadaala waxa ugu weyn waxa weeyaan ilaahay had ka jisaysiin waadii mahadnaqayna Dr. Saciid Yuusuf oo kamid ah howlwadeenada hay'adda IFAD oo isaguna ku sugnaa kulankan lagaga hadlayay dhameystirka cusbitaalka ee ka dhacay degmada Lughaya ayaa xusay in hay'adoodu u gudbiyeen baahida cusbitaalkan isla markaana ay qalabeyn doonaan waxaana kamid ah hadaladiisii anagu hay'adaha runtii haddii aan shayga la bilaabin cid wax ka qaba qofku markuu wax arko ayaa wax laga qabtaa gudaha ka soo maraya waxaan aragnay in cusbitaalkan uu baahan yahay in wax lala qabto hay'adii waan ka codsanay waxaan imika diyaar u nahay haddii alla ka dhigay inaan qalabkii keeno sariirihii hadday tahay muxuu ahaa qalabkii daawooyinka wixii medical iyo non medical la odhan jiray muxuu ahaa materialska waan keenina haddii la yidhaahdo wax ballan qaaday hay'addayada IFAD ayaa ballan qaaday. si kastaba ahaatee dhismaha cusbitaalkan degmada Lughaya ayaa isagu wax weyn ka tari doona baahidii caafimaad ee taallay degmada Lughaya oo dadweynaha deegaankaasi codsanayeen muddaba in loo dhiso cusbitaal. sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa looga baahan yahay inay dabaasho baahida dhanka shaqaalaha iyo dhaqaatiirta ee cusbitaalkaasi u baahan yahay iyo weliba xafiisyadii cusbitaalka oo ka dhiman dhismahan. Hashim Sheekh Cumar Good, Somalisat TV, Boorama.